xiriir kubadda cagta Soomaaliya ayaa markaasi wada qorsho ay ku magacaabi doonaan macalinka leelin doona xulka qaranka Soomaaliya ee 23 jirada kaasoo dhawaan ay ka qayb gali doonaan tartanka isreebka koobka adduunka ee loogu soo bixi doono bisha September ee dhici doona. Soomaaliya ayaa ku jirta groupka G ay markaasi ku jiraan xulalka ay markaasi la ciyaari doonaan oo qayb ay ka yihiin tartankani. Morocco iyo sidoo kale wadamo waaweyn ayay ka hortagi doontaa xulka qaranka Soomaaliya oo qayb markaasi ka sidoo kale Soomaaliya ayaa daneynaysa in ay markaasi sameyso isbedel weyn dhanka macallimiinta waxaana diiradda saaran macallimiin badan oo markaasi la doonayo in isbedel ay ka sameeyaan xulka qaranka Soomaaliya. macallimiinta diiradda u saaran xulka qaranka Soomaaliya ayaa waxaa kamid ah macalinka u dhashay dalka Morocco oo lagu magacaabo Rashid oo hore u soo leeliyay xulka qaranka Soomaaliya ayaa la filayaa in dhawaan lagu dhawaaqo heshiiskiisa waxaana la filayaa in saacadaha soo socda uu markaasi dhici doono heshiiskani. ilaha aan helin ayaa sheegay in macalinkan ay u wada socdo wada hadal xiriirka kubadda cagta Soomaaliya iyo sidoo kale macalinka waxaana la filayaa in la isku afgarto sidii lagu leelin lahaa xulka qaranka Soomaaliya ee ka qayb gali doona tartanka September ee ciyaari doonaan xulka qaranka Soomaaliya